بسم الله الرحمن الرحيم. صاد سocodtaan waxbarashadu waa iftiinka nolosha oo horumarka shakhsiga iyo bulshada waa mustaqbalka ardayga dadaalaya inuu noqdo qof waxtar leh wax qabta wax qabsada isla markaana isku filaada marka ardayda waxaan ku wacyigelinaynaa in ay dadaal geliyaan waxbarashada waqti bay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay waxa weeyaan waa maalgashi waqti oo naftaada gelinaysid mustaqbalkana aad midhaheeda goosanayso marka waxaan u baahanahay in waxbarashada lagu dadaalo in waqti la geliyo in ardaygu si kalsooni wax u barto wuxuu bartayna natiijadeeda inuu markaas u gaaro saad la socotaan horaan waxaa jiray arrimo yacna qaladaad xagga waxbarashada oo saameynayay tayada waxbarashada gaar ahaan qishka oo kale qishka uu ka baxay meesha sidaad arkaysaan labadii sano u dambeysay imtixaanaadkii dalka ee gaar ahaan fasalka 12aad waxaa lagu qaatay jaamacadaha si markaas looga hortago qishka iyo isdabamarinta taa waxay keentay in arday kooban ay gudubto ardaydaas waa kuwii dadaalay ee waqti geliyay waxbarashada marka waxaan u sheegaynaa ardayda kale inay dadaal geliyaan si marka ay natiijo wanaagsan u keenaan si mustaqbalkii iyo ujeedkii 12 sano ay soo dhiganayeen ay uga gungaadhaan waalidka iyo bahda waxbarashada waxaan u sheegaynaa in ardayda lagu garab galo dadaalkaas inaynu ka fogaano wax walba oo magaranaysa mugdi gelinaya mustaqbalka ardayda wax walba oo saameyn ku keenaya tayada waxbarashada ardayga inaynu ku caawino ardaydu inay akhristaan dadaalaan waqtina geliyaan waxbarashada sidoo kale ardayga waxa looga baahan yahay inuu aamino isaga dadaalkiisa iyo waqtiga uu gelinayo waxbarashada isla markaana tacabka waxbarashada uu gelinayo midhaheeda uu goosan doono marka wax walba oo mustaqbalkiisa biinaya ama mustaqbalkiisa halis ku ah sida qishka يعني ما garanaysaa in waxbarashadu si toos oo la soconin gogoysnimada ma garanaysaa baashaalka iyo daahitaanka kale inuu ka fogaadaan sidoo kale waqtigan ku jiro waqti casri ah oo teknoolajiyadii ay runtii tahay mid muhiim ah marka inaanu ka faa'iideysano teknoolajiyada waxbarashada uga faa'iideysano inaan si khaldan u isticmaal waqti inaynu waxbarashada gelino aalad walba oo aanu isticmaali karo waxbarashadana inaynu ka faa'iideysano marka ardayda waxaan kula dardaarmayaa inaad aamintaan nafsadiina iyo dadaalkiina tacabka waxbarasho aad gelisaan tacabka aad gelisaan natiijo wanaagsan inaad ka gaaraysaan wax la hubo weeye ardayga dadaala isku kalsoon waqti waxbarashada geliya waa la hubaa inuu ka gungaarayo ujeedkiisa oo ah inuu heer ka gaaro waxbarashada ama ha noqoto mid dugsi sare ama ha noqoto mid jaamacadeed ama ha noqoto xirfadda marka uu ku shaqeyn doono dadaalka hadda aad samaysaan id gelisaan waxbarashada waxay tacab iyo u tahay gashi mustaqbalkiina marka ardaydu ha dadaalaan waxbarashada lagu dadaalo. Assalaamu calaykum.